halkan waxaan jecelahay inaan dhambaal furan uga diro madaxweynaha cusub ee Puntland loo doortay Saciid Cabdullaahi Deni fariintaas aan u dirahayo ama dhambaalka aan u dirahayo 4 qodob ayaa ku soo qaadan doona haddii aan la idmo waxaan jecelahay inay gaari doonto mudane madaxweyne sidii lagu doortay waynu ogeyn marakan cilaaq in laga keeno ma aha dhaqankii loo maray doorashada ilaahay baa ku dooray baarlamaanka ku doorayna wixii loo maray iyo waxaa dadka reer Puntland ay ka aaminsan yihiin waxaan filayaa inaadan moogeyn haddaba si kastaba ha ahaatee maadaama Puntland madaxweynaheedii aad noqotay dariiq kasta u soo maray 4 waxyaalood baan isku dayayaa inaan kaaga digo 4taas waxyaalood waxa weeye inaad samayso sida ugu dhaqso badan oo aad u hirgeliso taasoo ay tabayaan dadka shacabka ee reer qodobka ugu horeeya waxa weeye dhammaystirka waaxyaha dowladda waxaynu ognahay 3 waaxyood oo muhiima inay dowladdu ka askunto ama midda federaalka ah Puntland ha ahaatee waaxda baarlamaanka ama sharci dejinta waaxda xeer ilaalinta ama judiciary iyo waaxda fulinta 3daas waaxood Soomaalidu way ka baqi jirtay ama federaal ha ahaato ama dowlad goboleedyo ha ahaato way ka baqdaa waaxda xeer ilaalinta waxayna uga baqdaa musuqa jira awgiis in iyaga laftigooda bixito ay qaniinto haddaba waaxdaas iyada ah haddii aan la samaynin horukac ma jiri doono dadkuna cadaalad iyo xeer ilaalin haddii ayaan helinin waxaa hubaala inay isku hor iyo daba imaanayaan dhibaataduna ayaan yaraan doonin qodobkaas waa qodobka koowaad qodobka labaadi waxa weeye ballanqaadkii ahaa qof iyo cod ballanqaadkaas isaga ahi waa abaajiyey dowladda dhexe waa ka abaajiyey dowladihii Puntland soo maray waa ka abaajiyey haddii aan degdeg loo fulinna waxay noqonaysaa qabaa'il isdabada iswada haysta oo aan marna kala dhammaanayn ayna geyi doonto inay colaado sokeeya abuurto arrintaa iyada ah haddaba sida ugu dhaqso badan weliba 6 bilood oo horaa adigu 1 sana tiriyey 6 bilood oo hore in la bilaabo waayo waa dhibaato aad u badan oo aan Soomaalidu weli ka fakarinin waxay leedahay tirakoob waxay leedahay tababarid dadkii loo tababari lahaa waxay leedahay mashiinadii codaynta lagu codayn lahaa oo looga dhowri lahaa maxaan ku idhahdaa musuqa iyo isdabamarinta in la helo haddaba arrintaas iyadaa early on in la bilaabo oo aad bilowdo waa lagaa rajaynayaa dadka shacabka maxaan ku idhahdaa waa kaa rajaynaya 66ka martida loo noqday oo aynu ognahay waxa ay ku yimaadeen iyo odayaasha soo xulay haddii aan laga biskoonin oo qof iyo codkiis aan looga biskoonin way dhib badan tahay oo nidaamkan qabaliga iyo in la heshiisiiyo democratizationka oranaya maxaa qof iyo cod waa wax aad u dhib badan hawl badanna laga soo mari doono cilaaq badanna sababi haddaba in early on la bilaabo oo looga hormaro maxaan ku idhahdaa dadka iyo dowlad goboleedyada kale iyo dowladda dhexe intaba waa waxa Puntland jiritaankeeda u noqon doona ama inay jirto ama inay baaba'do oo iyadu isdhinto qodobka 3aad waxa weeye samaynta wasiirro wax ku oo ku noqda baalal aad ku duusho haddii ay xambaa jirta oranaysa maxaan ku idhahdaa madaxweynaha waxaa loogu la gelaya oo wata kooxo magacya leh oo maxaan ku idhahdaa xibla Soomaalidu waxay tiraahdaa
ninkii aniga yiraahda dadka soo dii lagu naynaaso koox gaar ah waxaa hubaala inaad yeelan doonto cadow tiro badan aadanna ka dhammaan doonin lugtana ku qaban doona haddaba inaan koox lagu naynaasin aad u dhaxayso bulshada reer Puntland oo dhan waa arrin ku sugaysa taasina waxay u baahan tahay inaad hesho wasiiro wax noola oo kuu noqda baaladaad ku bulsho oo sumcadaada iyo legasiga aad ka tegi doonto berrito dhaawac u geysan qodobka afraad waxa weeye dadka reer Puntland waxay leeyihiin himilooyinkaas shacabka inaad u dhegan nuglaato oo isku dayo inaad wixii ka fuli kara aad ka fusho una tilaabo u qaado sidii ay u fuli lahaayeen oo ay raalli uga noqon lahaayeen hoggaamintaada waa arrin afraad afartaa arrimood haddii aadan maxaan ku idhahdaa hirgelinin waad ka dhacaysaa magaca iyo sumcadda reer Puntland iyo Soomaaliya waxaad iska jirtaa kaaga digaya inaad iska jirto in kooxi luuqinta kula gasho oo dhagaha iyo afka aad isu dhiibtaan oo aad luuq ku faqdaan Soomaalida inteedii kale alienation aad ku wadaan ay kaa fogaadaan ay dadkaa qaadaan aad ku weydo taageeradaada iyo magacaaga iyo sumcadaada aad ku weydo haddii ay taas aadan iska jirinin waxaa hubaala inaadan bilcadaba ka jirin waa la iska wada hor imaanayaa waa taqaanaa maxaan ku dhahaa dhaqanka qabaliga ah meesha maxaan ku dhahaa aakhirka ugu dambeeyo had iyo jeer fiirsi la isu fiirsanayo ayaa jiri doona haddii arrintaas iyada ah aadan ka taxadarin oo taxadar gaara aadan iska saarin bilcadaba kama jiri doontin waxaan kuu rajaynayaa inaad maxaan ku dhahaa noqoto madaxweynihii raalli laga wada noqdo inta badan bulshadu ay raalli ka noqoto oo ay ku baraadho oo waxyaalaha ay tagayso ay maxaan ku idhahdaa ka dhex aragto maamulkiisa iyo meelgeyntiisa ay ka dhex aragto aan kuu rajaynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu